laakiin isaga iyo tafsiirtiisa toona qudadayda ayay caadifadayda iyo dareenkayga kacay ay saamaysay shucuurtaada isbedeshay waa qiso aad iyo aad u xanuun badan oo muqdisho ka dhacday si ay gabadhi dhar u xidhato ayaa loo dilay 46 nin oo reer waqooyi ah waa xasuuqii jasiira sagaalkii Julaay sanadkii 1989 waxaa nin dharka culimada islaamka xidhan u muqdisho ku dhex toogtay baadarigii kiniisadda Vaticanka uu qaabilsanaa Soomaaliya ilaa iyo 1975 oo magaciisa la oran jiray Salvatore Colombo ninkii dilka geystay wuu baxsaday lamana aqoonsan madaxweyne Maxamed Siyaad Bare ayaa lacag badan duldhigay madaxa dilgeystaha isaga oo geesta kalena guluf ku qaaday wadaadadii masaajida 13 Julaay waxaa ka dhex kacay masjidka Sheekh Cali Suufi ee xaafadda Hodan ee magaalada Muqdisho wadaad gobolada dhexe ee Soomaaliya ka soo jeeday oo ku baaqay in maalinimada Jimceed ee beri ah la isugu yimaado masaajidda Muqdisho si looga dhiidhiyo kadeedka culimada ay dawladdu ku hayso iyada oo gaal baadari ah u hiilinaysa 14 Julaay waxay isugu yimi masaajidka dad aad u badan oo ka gadoodsan dibta diinta iyo wadaadada lagu hayo balse markii salaada jimca sidaas looga soo baxay waxa albaabada masaajidka ay isku hujuumeen askar tiro badan oo dawladdu ay soo dhooftay dadkii ayaa bilaabay inay askarta kula jihaadaan dhagaxaan kabahooda iyo wixii kale ay faralaab ka dhigan karayeen dadku waxay ahaayeen boqolaal teedsan xaafadda Hodan ilaa Kaasa Balbalaare dadkaas oo Soomaali jileec iyo Soomaali jareer bay isugu jiray ama maay iyo maxaa tidhiba ku hadlayay koox mudaharaadayaasha kamid ah ayuu si kadiisa uga soo baxay korneyl ciidamada ka tirsan oo gaari watay wuxuu isku dayay inuu dadka joojiyo isagoo bistoolad ula soo baxay wuxuu bilaabay inuu dadka xabadda ku rido dadkuna waxay sugayeen ilaa 7 xabba ay ka dhamaanayaan markii ay ka dhamaadeen xabadihii isagoo aan rasaas kala gashan ayay dadkii oo xuumaya gacanta ku dhigeen waxayna la dhaceen dhagax inta ay dhulka dhigteen ilaa ay naftu ka baxaysay waxaa la aasay ninkii ciidanka ahaa oo ka soo jeeday haybta madaxweyne Maxamed Siyaad Bare dhibaatadu waxay ahayd xaaskiisii oo diiday inay xidhato maryihii asayda ahaa ee dumarku ay xidhan jireen marka usaygeedu geeriyo waxayna tidhi gashan maaya asayda ilaa 50 nin loogu aaro oo loo dilo ninkaygii dhintay ciidankii waa isu tageen waana ay tashadeen talana waxa ay ku goosteen dadkii awalba ay israahaanta u leen jireen ee Hargeysa iyo Burco ay diyaaradaha ku rusheeyeen kuwa Muqdisho ka jooga hayb ahaan ay wadaagaan inay dhegta dhiiga u daraan si ay gabadhu dharka asayda u xidhato kadibna maxaa dhacay habeenkii ay taariikhdu ahayd 17 Julaay oo 3 maalmood kadib ayaa qiyaamihii laga riday xaafadda Buulaxuubay oo ay ku badnaayeen dadka reer waqooyiga bal aynu galno mid kamida guryihii balaayadu habeenkaas ku habsantay oo Raxme Maxamed Qaalib iyo qoyskeeda ayaa nabad ku soo seexday habeenkaas balse nasiib daradu waxay dhacday oo qiyaamuhu u dhacay kadib markii saqbadhkii ciidankii bahalaha ahaa ee dawladii dadcunka ahayd ee Siyaad Bare ay guriga khasab ku soo galeen oo ay dareersadeen 9 nin oo guriga joogay oo 4 inan ay iyadu dhashay inanna ay eedaruma u ahayd 3 inanna inamadeeda ay ilmaadeer ahaayeen inanka 9aadna inamadoodu ay adeeru si ahaayeen dhammaan 9kii inan waa la dareersaday waxaana la raaciyay 38 nin oo kale oo iyagana guryahooda xaafadda Buulaxuubay isku waqti habeenkaas lagala baxay waxa la kaxeeyay guud ahaan 47 rag dhalinyar u badnaa oo isugu jiray arday shaqaale dawladeed ganacsato
iyo aqoon-yahan ay dhakhaatiiri ku jirto isla habeenkaas ayaana saraakiil qoyskii iyo qabiilka maxamed siyaad bare ka mid ahi ay si fool xun ugu xasuuqeen xeebta xamar ee jasiiro lagu magacaabo oo baas si arxan daran ugu wada fureen raggii waxaana habeenkaas halkaasi ku geeriyooday 46 ka mid ah 47 waxaanay ajashiisu dhammaanin oo goobtaas ka baxsaday ilaahay ayaa wax ka maaganaaye muuse cumar mire cawil oo xilligaasi ahaa 26 jir waagii ayaa bari hooyo raxme maxamed qaalib iyo inanteedii kelida ahayd waxay sameeyeen quraac waxaana ay qaadeen cuntadii ay sameeyeen iyo dhar iyaga oo ka dabageynaya raggii iyo inamadii xalay toole guriga laga xidhay waxaana ay geeyeen xaruntii lagu yidhi waa lagu xidhay ee dhanaane oo askartii ayaa ka guddoontay cuntadii iyo dharkii oo u sheegtay inay iyagu guddoonsiin doonaan maxaabiista u xidhan haddii ay gurigii ku soo laabteen oo galabnimo la joogo waxa u yimi war xumi dugsi ma fadhiistee in inamadeedii xalay la kaxaystay aanu midi ka noolayn oo xalay si bini'aadanimada ka baxsan loo laayay 18 July waxa goobtii xasuuqa tegay janankii ciidanka booliska Soomaaliyeed Axmed Jaamac oo ka soo jeeday Somaliland isagiina maxaad ka doontay ayuu xilkiisii ku waayay dhammaan guryihii habeenkaas inamada lagala baxay qiyaame ayaa u wada dhacay hooyo raxmo waxaa nasiib wanaag u ahayd in habeennimadii balaayadu dhacday galabnimadeedii ka horeysay inan iyadu ay dhashay oo xasan mataan lagu magacaaba uu guriga ka tegay isaga oo qalab u qaaday gaari ay lahaayeen oo marka agteeda ku ciladoobay inankaasna habeenka ajashiisu sidaas ayay ku badbaaday xasan mataan oo aarkii qoyskiisa u jooga wuxuu hor fadhiyaa barnaamijka dhacdiya dhigaal ee maxamed cismaan mire sayid soo saaro isagoo barnaamijkan kaga wakiila qoysaska kale ee faraha badan ee la xasuuqay inamadooda xasan mataan oo arrimo badan oo qisada la xidhiidha ka waramaya muxuu kaga falceliyay in ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdi Yuusuf uu 4 sano ka hor goobjoog TV u sheegay inay rasaas ku jarjareen raggii ay habeenkaas guryaha kala baxeen ee ay isirleynayeen laakiin isaga iyo tafsiirtiisa toona حسن استجي عاد اسكدك اذا كسكنار الهي وصونقو waxaana way dhaceen waa rahantii waa qisa xanuun badan oo murugo badan oo dareenka kula qabnaa kaas oo kalena de warkiisu waa nin dambiilaha oo ka baqanaya in la daba galo isdifaacaya ayuu ahaa marka waxbayay ku gubin baaqaya waliba in allaaliya inta cidda isaga iyo ciddu ka soo tafsiirmayba ninkaa kama hari doono ninkaas wuxuu sameeyey yani ninka nabarka kugu dhufta iyo ka kugu dhaqdhaqaajiya xun qudadayda ayay caadifadayda iyo dareenkayga kacay ay saamaysay shucuurtaada isbedeshay xasan mataan iyo ehelada kale ee dad kale laayay waxay madaxweynaha iminka Soomaaliya haystay ee Xasan Sheekh Maxamuud ka codsanayaan inuu siiyo lafihii raggooda si ay si hagaagsan ugu aastaan Hargeysa maadaama si xurmad daran iyo xabaalo wadareed Muqdisho dawladii bahalka ahayd ay ugu aast dacwadaha u yaala sarkaalkii habeenka ciidanka watay ee Canjeex maslax siyaad bare iyo rag kale dadaalada qurba joogta Somaliland ee dhiigalii ku horgeynayaan maxkamadaha dambiyada adduunka iyo arrimo kale oo badan qiyaamihii buulaxubay ilaa xeebta jasiira wuxuu saaran yahay toddobaadkan miiska barnaamijka dhacdiya dhigaal oo la baahin doono maalinimada ugu horeysa bisha August saacada bariga Afrika marka ay ku beegan tahay 9:45 daqiiqo habeenimo